maxay ku kala duwan yihiin Gaza iyo Daanta Galbeed kuwan oo ah labada meelood ee Falastiiniyiinta uga haray dhulkoodii waxay isku jiraan 50 kiiloomitir midna waa magaalo midna waa dhul ballaaran oo ka kooban magaalooyin badan aynu ku hormarno magaaladan bas beeshay ee loo isticmaalay hubka ka caagan goobaha shacabka Gaza oo ay qolyaha xuquuqul insaanku ugu yeeraan xabsiga ugu weyn ee dusha ka furan waxa ku nool 2.3 milyan oo qof oo uu barkood caruur yahay waa magaalo weyn oo ka kooban 5 degmo oo kala ah waqooyiga Gaza magaalada Gaza Deir al-Balah Khan Yunis iyo Rafah Gaza waa magaalo xeebeed badda ku dheerarsan oo go'doonsan loo dhisay si dherer ah oo ku fadhida 41 kiiloomitir oo dherer ah iyo 7 kiiloomitir oo ballac ah geesahana waxa ka xiga oo ay xuduud la leedahay Masar badda cad ee dhexe iyo qolyaha meesha ku ootay Israa'iil waa 2.3 milyan oo qof oo ku nool 365 square kiiloomitir oo ay 1.7 milyan oo qof oo kamid ah ay ku nool yihiin kaamam qaxooti halkii square kiiloomitirna waxa ku soo aadamaya 6300 oo qof waana mid kamid ah magaalooyinka ugu isku raranka badan uguna ciriiriga badan adduunka sida ay Al Jazeera sheegtay dadka ku nool magaaladan Gaza 65% waa dhalinyaro ka yar 24 sano 60% dadka Gaza degan waa qaxooti ka soo qaxay dhulkoodii iyo hadda ay ugu yeeraan Israa'iil heerka shaqo la'aantuna waa 46% heerka saboolnimadu waa 81% 95% ma helaan biyo nadiif oo ay cabaan taasoo keentay in ay kala bar caruurta reer Gaza ay la xanuunsadaan infekshan la xiriira biyaha wasakhaysan 63%na cunto ku filan ma haystaan korontaduna maalinta inta badan waa maqan tahay oo celcelis ahaan 12 saac ay joogtaa sanadku markii uu ahaa 1948 waxa dagaal dhex maray Yahuudi Falastiin deganayd iyo Carabtii Falastiiniyiinta ahaa waxaana la soo jabiyay Carabtii taasoo sababtay in ay soo qaxaan ilaa 750,000 oo qof iyagoo qaxooti ahna ay soo dagaan qaybtan kale oo dhulkoodii ka mid ah musiibadaasna waxay ugu yeeraan Nakba guryahoodii iyo hantidoodiina waa kaga yimaadeen ilaa haddana kuma aysan noqon loomana ogola inay xitaa soo arkaan sanad kadib dagaalkaasna heshiis ay gaareen Masar iyo Israa'iil ayaa waxa maamulka magaaladan la wareegay Masar waxayna gacanta ku haysay ilaa 1967 oo ay dagaal Masar iyo Israa'iil dhex maray dib mar kale ugu qabsatay Israa'iishu magaaladu waxay u dhisan tahay si dhuuban oo ballac ahaan 7 kiiloomitir ah inay geesaha u fidi weydana waxa keenay Israa'iiliyiinta oo ku wareejiyay darbi adag oo aysan soo dhaafi karin waardiyana saaran yahay waana arrinta keentay inay isku raranka noqdaan waayo waa 41 kiiloomitir ay ku nool yihiin 2.3 milyan oo qof goortii la soo dhaweeyay maapka Gazana waxaad arkaysaa in darbiga dhinaca Israa'iiliyiintu joogaan uu yahay dhul bannaan oo beero laga dhigay oo faakihaysi ahaan uusan dadba joogin laakiin taas bedelkeed beero laga qotay halka dhinaca Gaza ee Falastiiniyiintu joogaan aad arkayso in ay magaaladu dusha iska saaran tahay oo ay jirto boosas la'aan ba'an xitaa uusan u harin dhul quman oo ay wax ku beertaan arrinta isweydiinta la ayaa waxay tahay sida maapka inooga muuqata jihooyinka waqooyi iyo koonfurba waxay kaga soo wareejiyeen darbigii marka magaaladu sidee mustaqbalka u kori doontaa soo noqon mayso inay Falastiiniyiintu xayndaabkaasir isku ciriiriyaan haddii ay xitaa 10 milyan noqdaan darbigan oo dhismihiisa la bilaabay 1994 waxa Israa'iil ugu tala gashay inay ku kontaroosho isu socodka Falastiiniyiinta iyo badeecada u tagaysaba iyo inay ku ciriiriso oo aysan dhul dhisan una soo tallaabin xagga maamulka magaaladan waxa loo arkaa mid la haysto waayo xuduudaheeda waxa si buuxda gacanta ugu haya Israa'iiliyiinta laakiin amniga iyo maamulka dhexdeeda ah waxa maamula ururka Xamaas oo awood kala wareegay ururkii Fatah oo awal iyagu maamuli jiray xagga dhaqaalahana magaaladan waxay ku tiirsan tahay macaawinad dibadda ah sida dalalka Carabta iyo qaramada xagga adeega bulshada sida korontada biyaha cuntada iyo daawadana waxay ka soo galaan dhinaca Israa'iiliyiintu joogaan taageerana maahana waa kala iibsadaan way fatashaan iskana baaraan wax aysan raali ka ahayn uma soo gudbaan waxyaalaha la yaab kale ay sameeyso Israa'iil waxa kamid ah inay Falastiiniyiinta u soo deyso hadba xaddiga cuntada ay ugu tala galeen oo ay ka rabaan inaysan jir ahaan xoog badan yeelan gaajana aysan u dhiman haddaan u imaano Daanta Galbeed waa dhul xiran oo badla'aan ah dhinaca bari ay Urdun ka xigta maahana inta kale waxa kaga wareegsan Israa'iil dhulka ay haysato waa dhul ka ballaaran marka loo eego Gaza oo ku fadhiya bad ahaan 5680 kiiloomitir oo square ah wuxuuna dhinaca ku hayaa harada milixda badan ee badda dhimatay sumadda ugu weyn ee lagu garan karana waa in uu ku yaalo Daanta Galbeed webiga Urdun oo ah sababta loogu bixiyay magaca Daanta Galbeed ama West Bank dadka ku noolna waa in ka badan 3 milyan oo qof laakiin si ka duwan Gaza Daanta Galbeed waxa ka talisa oo si buuxda guda iyo banaanba u maamusha Israa'iil si ka duwan Gazana waxa jira dad Israa'iiliyiin ah oo ilaa 450,000 oo la dhex dejiyay Daanta Galbeed si ay ugu tarmaan muwaadiniin Daanta Galbeed xuquuq ku leena ay u noqdaan markii ay Falastiiniyiintu guri dhisanayaan
waa inay idan ka qaataan Israa'iil maadaama iyadu ka taliso laakiin aad ayaa loogu adkayaa waana loo diidaa inta badan ruqsadda dhisidda guri halka marar badan guriga ay dhistaan iyagoo u jeeda cagaf hoosta laga geliyo iyadoo hooyooyinkii iyo dhallaankii dhaxanta ka geli lahaa ay ilmadu ka gabo leedahayna hortooda dhulka lagula simo hooygii ay ku dhisteen wax ay naftooda ka afqabteen si taas ka duwanna marka uu qof Israa'iili ah damcayn uu guri dhisto aan kaliya loo fududayna bal lagaba caawiyo dhismihiisa marka waxay isticmaalaysaa Israa'iishu siyaasad barabixin ah oo waxaan arkaynaa in ay dhexda ka dejiyeen dadkooda si tartiib ahna ay ugu faafayaan sidii fayraskii taasoo ay ballan ku qaadeen inay sii wadi doonaan ilaa dhulkaas oo dhan ay iyagu yeeshaan sida uu qirayo maayorka Israa'iiliga ee magaalada Itmar מעדיפים להמשיך במצב הקיים ואיתו להתקדם כיף בצד אגודל עד שכל המדינת ישראל תהיה שייכת לעם ישראל. halkan saa ku arkayna midabka dameeriga ah waa Israa'iiliyiinta ama Israa'iil kan cagaarka ahna waa Falastiiniyiinta dhexda ayay ka galeen daanta galbeed wayna ku sii baahayaan mar walba waxa intaas sii dheer magaalooyinka daanta galbeed ku yaal waxay ku samaysteen ilaa 1500 oo checkpoints oo kan u yar ee guurguura ay la socdaan 50 askari haddii adigoo daanta galbeed jooga aad damacdid inaad ka soo adeegatid meel ku muuqata waxay qaadanaysaa saacado badan maadaama hadba checkpoint lagu istaajinayo waxa kaaga sii daran si caadi inta lagu baar lagu sii dayn mahaye waxa lagu haysanayaa si nacayn ah hadallo qalafsan oo dareenkaaga bedelayana waa lagugu dhaga hadlayaa qofkii isku taagtaago ay damiir iyo iska dhicin ku arkaanna waxay geeyaan xabsi ay adag tahay ka soo noqoshadiisu waana sababta ay xabsiyadooda ugu xiran yihiin in ka badan 6,000 oo Falastiiniyiin ah tacadiga noocan ah shacabka kaliya maahan xitaa shaqaalaha UN-ka ayaa aad uga cabta oo ku dhex noolaan la tan waxa Israa'iil uga dan leedahay inay dadka nacsiisa joogitaanka daanta galbeed oo waxay rabtaa inuu qofku inta ka raahsado iska tago taasna ay keento in populationkii Falastiin uu yaraado booskoodiina la soo dejiyo Israa'iiliyiin isfiditaanka noocan ahna caalamka waxay ka tahay sharci darro oo waa kan xoghayaha qaramada midoobay oo si toos ah u sheegaya in isfiditaanka sharci darrada Israa'iil ay keeni karto isku dhac gobolka oo dhan ah I call on the Israeli government to abandon its annexation plans. waxa intaas oo dhan sii dheer markii qof caraysan oo Falastiini ah uu wax gaarsiiyo askari ku xadgudbay oo iyaga ah waxay ku dhuftaan rasaas nool oo dilka bareerka ah waa iska joogto haddii ay xaaladdu fogaato oo la weeraro ciidankoodana waxay uga aarsadaan si aan kala sooc lahayn oo dhulka ay la simaan shacabkaas masaakiinta ah ee deerka ugu xaraysan marka su'aasha muhiimka ayaa waxay tahay kuwa Xamaas ugu yeeraya argagixisada ma waxa Israa'iil samaynayso ayaan ahayn wax laga godoodo oo laga dagaalamo